الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo wixii soo kordhay 24 saac oo ugu dambeeyay xaaladaha COVID-19 waxa soo korortay 49 xaaladood oo ragga uu yahay 38 dumarkana 12 26 kamid ah 49 ka waxay joogan gobolka Banaadir koonfur galbeed waxay joogtaa 9 Puntland waxay joogtaa 8 Somaliland waxay joogtaa 6 da'da dadka laga helay inta ay u dhaxayso hadaan fiirino 20 sano wixii ka yar waxa way boqolkiiba 6 20 ilaa iyo 39 waxa way 43 boqoleeydi 40 ilaa iyo 59 waxa way 29 60 iyo ka badanna waxa way da'doodu 23 tirada guud ee dadka laga helay waxay isugu tagaysaa 1219 ma jirto 24 saac ugu dambeeyay ma jirto wax dhimasho ah waa ilaahay mahadis tirada guud ee dhimashada waa weli 52 waxa ka bogsaday cudurka laga waayay 4 qofood tirada guud ee bogsatana waxay noqonaysaa 130 guud ahaan daan ku noqono siyaabaha looga hortago cudurka waa cudur aad u faafa goboladii ku faafay maalin walba tirada ay sii kordhayso waxaan isku dayeynaa baaritaan waafi inaan sameeyno marka ugu horeyso qalabkii noo soo dhamaadaan agabkii lagu baari lahaa si loo gaarsiiyo maamul goboleedyada aanan haysanin magaalooyinka waaweynna loo dhigo maaragtay meel kale la dhigo si tirada ugu badan ee la baari karo ay dawladda u gaarto midda kale wacyigelinta waa in mar walba lagu dadaalaa in la dhageysto khubarada iyo wasaaradda caafimaadka iyo fariimaha iyo tilmaamaha ay bixinayaan si cudurka looga hortago cudurka waa laga hortagi karaa waxyaalaha looga hortagi karo waa qofka inuu is dhowro talooyinka uu raaco meelaha buuqa iyo ciriiriga uusan galin in uu hadii uu ka shakiyo qof uu qabo ama uu arko inuu ka fogaado in iska ilaaliyo meelaha salaanta iyo isu dhawaashaha tirada badan sababtoo ah mar walba ma aha inuu qofka xanuunsan yahay jirkiisa viruska uu ku jiro mararka qaar kood isagoo jirkiisa uu ku jiro ayaa qofka calaamada uusan lahayn saad aragtaan da'da ay u dhaxayso waa da'da 20 ilaa 40 39 numberka ugu badan oo laga helo waa dhalinyarada waa run waa adkaysi badan tahay laakiin dhalinyarada hadii xataa ay caafimaad qabto oo ilaahay si cudurka korkooda uu ka soo bixin waxay awood u leeyihiin inay u gudbiyaan dadkii dhalay dadkii la dhashay dadkii ay saaxiibada ahaayeen iyo dad kale oo u nugul cudurka oo familkooda ama saaxiibadooda marka la leeyahay adigana is ilaali dadka aad jeceshahay iyo bulshadana ka ilaali micnaheedu waa saas in lagu dadaalo nadaafadda si looga hortago cudurkan gacmaha dhaqashada la badiyo markasta oo la dhaqanayo ugu yaraan 20 second iyo ka badan saabuun lagu dhaqo ama sanitizer wax un ka dhaqo jeermiska in marka aad banaanka u baxayso maadaama meel ciriiri aad mararka qaar kood mari kartaan basaska la raaca ciriiri uu yahay in ma aragtay afka la xirto oo mask la qaato isku dayeynaa intaan karaankeena in la sameeyo oo dadka loo qaybiyo bulshada cudurkan waa laga hortagi karaa waa waajibna saaran qof kasta oo Soomaali ah bulsho weynta inay ka taxadirto inuusan cudurkan faafin haddii lacala qofka uu arko calaamadihii cudurka lagu sheegay lagu tilmaamay inuu wacdo nambarada loogu talagalay si uu u wareysto taqaatiir iyo dad waxa jira cilmi u leh ee ka talin kara waana siin kara waxyaalaha uu qaban karo qofkii xanuunka isku arka inuu aado isbitaalada loogu talagalay ama isbitaal kasta oo u dhow oo lagu daaweyn karo in laga taxadiro in cudurkan uu yahay cudur laakiin aanan la isqarinin oo qofka ma aragtay markii uu ku dhaca uu san yareysan inuu isqarinin oo dadkii ma aragtay uu qaadsiyo sababtoo hadaad qariso qofkii ku dhawaa ma dareemayo inuu xanuunka ku haayo waxa laga yaabaa inuu kula falgalo Soomaalida waa wada nooshahay waa dad is maxabeeyo salaanta aad u badiyo waxyaalahaas oo dhan in laga taxadiro waa waqti laga gudbi doono insha Allah ilaahay hana dhaafiyo dhibkiisa laakiin dhalinyarada waxa saaran waajib weyn inay ka wacyi geliso dadka ay u sheegto qatarta iyo inay iyaga iska ilaaliso ka hortagga waa waxa ugu fiican oo la sameyn karo
إن شاء الله تعالى أن وذا ددالنا إلهي حنجح هاي عذر آفديس دبكيس وحنو وذا رجينا رمضان عافي ماضي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.